waxaa markii ugu horeysay magaalada Muqdisho lagu qabtay ciyaar lagu magacaabo goalball oo ay ku tartamaan dadka indhahala. ciyaartan waxaa isugu hor yimid laba kooxood oo kala ah Horseed iyo Xidigaha, kuwaas oo ka wada tirsan dugsiga Al-Nuur oo ah dugsi ku yaala magaalada Muqdisho dadka indhahala ay wax ku bartaan. wariyana Jacfar Kuukay ayaa warbixintan noo haya. waa ciyaartii ugu horeysay oo noocan ah ee ka dhacda gudaha dalka Soomaaliya, waxaana ardayda iskuulka Al-Nuur ku maamuusayeen qalinjibinta dufcadii ugu horeysay ee arag la'aan oo dhamaysatay heerka hoose dhexe isla markaana u gudbaysay dugsiga sare. maadaama ay ciyaartu ku cusub tahay guud ahaan dalka, sidaasi si la mid ahna ciyaaryahanada lafahantoodu waa ay ku cusbayd oo muddo kooban ayaa lagu gaarsiiyey heerkan ay maanta sidii caadiga ahayd ugu baratamayaan, iyagoo u arkayay in ay u tahay tallaabo ay horay u qaadeen. annagoo ah kooxdii ugu horeysay oo aragla oo si wadar ah ugu dheesha dalka ama Muqdishoba oo si heer caalami loo daawado oo maartay idaacada laga tabiyo oo maartay meelaha laga daawado. runtii dareenkan wuxuu yahay mid farxad leh. waxaan leeyahay waa guul noo soo hoyatay haddaan nahay dadka aragga leh. inkastoo ay gaar u tahay dadka aan aragga lahayn, haddana goalball waa caalami oo waxa ay qayb ka tahay ciyaaraha olombikada adduunka, waxaanay tababarayaasha ciyaartani sheegeen inay ku hanweyn yihiin in xilliyada soo socda ay koox Soomaaliyeed ka mid noqoto kooxaha caalamka ee loolamaya. ciyaartoydan araggala aad ayay ugu faraxsanaayeen inay helaan ciyaar iyaga u gaara, islamarkaana ay bulshadii horay u takoori jirtay ka noqdaan xubin aan la dafiri karin. dadka may aaminsanaan jirin in maaragtay qof aragla oo maaragtay wax bara karo, uu soco karo, xitaa wax uu cuni karo ma aaminsanaan jirin. qaarkood wuxuu ku leeyahay gacanta afka laga fiirsaa. marka run ahaantii maanta dareenkaas inuu baabaa u malaynayaa inaan wax barana aan ka tallaabnay, inaan maaragtay maanta aan kubaddeena iyo dareenkiina taagan yahay. markii ugu horeysay ciyaartani waxa ay dunida ku soo biirtay sanadkii 1946, waxaanay ujeeddadu ahayd in madadaalo iyo dhaqan celinba ay u noqoto askartii araggooda ku weyday dagaalkii labaad ee dunida. waxaa lagu ciyaaraa garoon uu dherarkiisu gaarayo 18 mitir, ballarkiisuna uu 9 mitir yahay. koox walbana waxa ay ka kooban tahay 3 ciyaaryahan, iyadoo mid ilaa 3 kalena ay kayd ahaan tiim walba ugu fadhiyaan. culayska kubadduna waa 1 kiilo iyo bar. waa ciyaar ku salaysan dareenka ama shanqarta ay ku ciyaarayaan dadka indhahala. barooniga waxaa la yidhahdaa goalball. baroonigu wuxuu leeyahay shanqar, saad ma wada maqlayseen. shanqartaas ayay dhegaysanayaan. Jacfar Kuukay, VOA, Muqdisho.